kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine inaan kusoo gudbino warbixinada ugu dambeeyey ee arrimaha Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan qodobada dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey shirka Dhuusamareeb, madaxweyne Farmaajo oo helay taageerada maamul goboleedyada, xal laga gaaray xiisadda gobolka Gedo. xogo muhiim ah ayaa dhegeysan doontaan guud ahaan wararka shirkaasi. taageerayaasha Trump oo bartilmaameedsaday Ilhaan Cumar, Itoobiya oo fashilisay weerar lagu qaadayay safaaradda Imaaraadka Carabta ee dalka Itoobiya, iyo qorshaha madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu doonayo in mar kale uu ku bedelo dastuurkaasi oo fursad u siinaya in muddo dheer uu sii joogo, iyo warbixino kale ayaa dhegeysan doontaan. xogaha ugu dambeeyey ee laga helayo shirka Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu heshiiyey si hordhaca arrimo ay ka mid yihiin gobolka Gedo oo xudun u ah khilaafka ka dhashay doorashada dalka ee 2021. madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo uu heliyay gobolka Banaadir ayaa isfahan bilow oo ka gaadhay xiisadda gobolka Gedo ee muddooyinkii dambe ka taagnayd, waxayna heleen xal ay ku qanci karaan dowladda federaalka iyo maamulada ay ka mid yihiin Jubbaland, siday warbixinadu sheegayaan. dhinacyada ku shiray Dhuusamareeb ee isla gartay laba qodob oo la rumaysan yahay inay xal u noqon karaan xiisadda gobolka Gedo, taas oo dowladda federaalka iyo Jubbaland ay wada aqbaleen. arrinta Gedo ayaa waxaa xalkeeda loo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si xal buuxa ay uga gaadhaan, waxayna soo jeedinayaan arrinta lagu xalinayo in ciidamo booliis AMISOM la geeyo Garbaharey oo ah magaalada labaad ee Jubbaland doorashada ay ka dhacayso, si labada dhinacba aysan awood doorashada ugu yeelan. 2. in guddiga doorashada ee Jubbaland la geeyo Garbaharey si doorashada halkaas ay ugu qabtaan iyada oo amnigooda ay sugayaan AMISOM. dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in maamulka Gedo ee Jubbaland lagu soo celiyo, gaar ahaan duqa magaalada, taasi oo meesha ka saaraysa maamulka dowladda federaalka Soomaaliya ay samaysay. xiisadda Gedo ayaa u muuqata in xalkeeda la helay, waxaana la rumaysan yahay in haddii arrintani dhab tahay ay siin doonto fursadda ugu wanaagsan ee heshiis ay gaadhaan Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, iyo sidoo kale in xal ay noqon doonto tabashooyinka ay qabaan Jubbaland iyo Puntland. tan oo fursad siinaysa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in taageero uu ka helo 5 maamul goboleed ee dalka oo uu weheliyo gobolka Banaadir. arrintani oo qalbi jab ku ah sida ay u arkaan xubnaha mucaaradka ah oo markii hore fursad ka daba raadinayay Jubbaland iyo Puntland mucaaradka ay ku ahaayeen dowladda. qodobada kale ee isfahamka laga gaaray waxaa ka mid ah qadiyadda gobolada waqooyi oo loo saaray iyagana in xal ay ka gaadhaan gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu ka hor istaagay inuu ka qayb galo shirka Dhuusamareeb. arrimaha doorashada ee kale ee lagu muransan yahayna waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaare Roble loo xil saaray inay ka shaqeeyaan saxiixda guddiga doorashada, gaar ahaan shakhsiyaadka la sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adaha dowladda. arrimaha kale ee sidoo kale guulaha laga gaaray waxaa ka mid ah waqtiga doorashada, in lagu qabto doorashada heer baarlamaan iyo madaxweyne muddo 45 cisho ilaa 60 cisho gudahood. arrinta gobolka Banaadir ayaa sidoo kale ay ka wada hadleen xal horumarana laga gaaray. kulamadii ay yeesheen dhinacyadu ayay ku taageereen 13 xildhibaan ee gobolka Banaadir oo lagu wado in gobolka Banaadir uu matalaadda ku yeesho. wararka ayaa intaa ku daraya in jawga uu yahay mid degan marka loo eego sida uu ku bilowday, gaar ahaan heerka ay taagan yihiin dhinacyadu. shirka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo fulin lahaa qodobadii lagu heshiiyey 17 bishii Sebtembar, sida ay taageerayaan beesha caalamku. xogaha kalena siday ku warantay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya ee INA waxay shaacisay in la xidhay 15 qof siday sheegeen oo qorsheynayay inay weerar ku qaadaan safaaradda Imaaraadka ee magaalada Addis Ababa. sida ku cad ciidamada sirdoonka Itoobiya iyo sidoo kale gacanta ku dhigay hub iyo walxaha qarxa iyo dukumeentiyo. waxay soo xigatay wakaaladda wararka ee dalka Itoobiya inay sheegtay
in qalabkani iyo 15 qof ee gacanta lagu dhigay kadib howlgallo ay sameeyeen sirdoonka Itoobiya. bayaan ayaa lagu xusay in dadka gacanta lagu dhigay isla markaana iyaga oo wakiilka ah kooxaha argagixiso oo shisheeyay oo doonayay inay weerar fuliyaan. koox labaad oo laga shakisan yahay ayaa sidoo kale la sheegay inay maleegayaan weerar lagu qaado diblomaasiyiinta Imaaraadka Carabta ee ku sugan dalka Suudaan. bayaanka ayaa lagu sheegay in sirdoonka Itoobiya oo kaashanaya dhigooda dalka Suudaan ay suurto gashay inay burburiyaan shabakad argagixiso ah isla markaana ay fashiliyaan weerar lagu qaadi rabay safaaradda Imaaraadka ay ku leedahay dalka Suudaan. lama ammaanka dalka Itoobiya ayaa dhaga kala sheegay inay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo qabto 22 qof oo kale oo looga shakisan yahay arrintan inay ku lug leeyihiin. ilaa iyo iminka ma jiro wax wara oo ku saabsan arrintan oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa taageeraysa dalka Itoobiya, gaar ahaanna waxay ku jirtay dowladaha taageeray dagaalka gobolka Tigreega. lamana oga in kooxahan gacanta lagu dhigay ay ka tirsanayeen gobolka Tigreega. xogaha kalena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan waxaa ka soo yeeray hadal buuq badan dhaliyay, taas oo ah in Turkigu uu yeesho dastuur cusub, waxaana uu abuuray guux badan oo gudaha Turkiga ah. Erdogan oo 66 sano jir ah ayaa ra'iisul wasaare ama madaxweyne ka ahaa Turkiga tan iyo 2000 isagoo marka badbaaday isku day afkambi. wuxuu sanadkii 2017 gadaal ka riixay isbedel lagu sameeyay dastuurka oo lagu baabi'iyay jagada ra'iisul wasaaraha laguna abuuray mid madaxweyne. waxa uu kadib 2018 ku guuleystay xilka madaxweynaha, taasi oo ah xilliga koobaad ee 2 muddo xilaad oo ka kooban min 5 sano ee dastuurku uu ogol yahay in muwaadinku uu noqdo madaxweyne. taasi waxay meesha ka saartay in 2 muddo xilaad oo hore oo xilka uu hayay Erdogan ay meesha ka baxaan isla markaana bilow cusub uu ka helo 2 muddo xilaad oo kale. Turkiga ayaa la filayaa in doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha la qabto bisha June 2023, taas oo macnaheedu yahay in xukunka Erdogan uu dhammaan doono 2028 haddii dib loo doorto. hase yeeshee kadib markii uu gudoomiyay shirka golaha wasiirada Isniintii, Erdogan wuxuu soo jeediyay in la qabto dastuur cusub oo la bedelo midka hadda ka jira dalka 1982 kadib afgambi military oo dhacay. way caddahay in isha dhibaatooyinka Turkigu tahay dastuurka ay qoreen dowladaha afgambiga, ayuu sheegay. waxaa la joogaa waqtigii dib loo furi lahaa dastuurka cusub haddii aan isfahanno xisbiyada kale. arrintani ayaa loo arkay in madaxweynaha uu doonayo in guud ahaan uu ku bedelo muddaxileedkiisii oo gabagabaabsi jooga 2028. haddii uu bedelo dastuurkana waxay la mid tahay in kow uu ka bilaabayo xilka madaxweynaha oo uu leeyahay 2 teeram oo kale in la doorto, taas oo fursad u siinaysa madaxweynaha waqti dheeri ah. sida loo arko xisbiga AKP ee uu hogaamiyo Erdogan ayaa waxaa xulufo la ah xisbiga MHP. hadalka madaxweynaha ayaa dadka qaar u fasireen inuu meesha ka saaro muddaxileedka madaxweynaha oo ka kooban 2 goor si marka saddexaad uu ordo haddii uu ku soo baxayo. xogaha kalena xildhibaanada jamhuuriga ayaa doonaya in Ilhaan Cumar ay ka caydiyaan guddi ay ka tirsan tahay. Ilhaan Cumar oo lagu marmarsoonayo inay sheegtay hadallo yuhuud nacayb ah, taas oo loo cuskan karo in laga eriyo guddiyada ay ka mid tahay sida midka miisaaniyadda iyo midka la xiriira caalamka. jamhuuriga ayaa doonaya in tallaabadani ay u adeegsadaan in guddiyadaasi laga saaro Ilhaan Cumar iyagoo u adeegsanaya inay faafiso ama ay qaadato aragtiyo ka soo horjeeda siyaasadda Mareykanka ee dunida. mid ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga Mrs. Green ayaa sheegtay in sababaha Ilhaan Cumar ay u cuskan karaan ay tahay inay taageertay gacanka hadallada, gaar ahaanna rabshadihii ka dhacay dadka madowga ah iyo dadka Mareykanka ah siday ku eedeynayaan, iyo in kicintaasi ay qayb ka ahayd. inkasta oo madaxweynaha jamhuuriga Donald Trump uu isagu sabab u ahaa mid ka mid ah sumcad-xumadii ugu xumayd ee kicinta dadweynaha, haddana waxay jamhuuriyiinta oo inta badan taageera siyaasadda Israa'iil ay u arkaan in Ilhaan Cumar ay ka soo horjeedo qadiyadaha Israa'iil. sidaa darteed waxay adeegsanayaan dhowr sharci oo ay doonayaan Ilhaan Cumar inay ku eedeeyaan in laga saaro guddiyada dastuuriga ah ee baarlamaanka